بسم الله الرحمن الرحيم waxaan hambalyeynaya doorashadii ay shalay ka dhacday hoolka afisyooni ee qabsadeen reer Somaliland waxay ahayd doorasho dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka maqsuudeen waxay ahayd doorasho dadka Soomaaliyeed u arkayeen doorasho ilaa xad nadiif ah maangal ah ay u arkayeen maxaa yeelay waxay ahayd doorasho dhammaan mucaarad iyo mu'ayidba ay fursado siman ay u heli kareen ama ay ka heli kareen ay ahayd sidaan dhamaanteen wada daawaneynay ama aan wada fiirsanaynay waana midda aan nadaanahay midowga musharaxiinta aan mar walba u dalbanaynay doorashooyinku inay noqdaan doorashooyin nadiif ah doorashooyinka koow in lagu qabto goob ka caagan ciidan iyo cabrun iyo jajuub ka caagan doorashooyinku inay gudiyadu inay noqdaan gudiyo madax bannaan oo doorashada ku qaban kara si madax bannaan ayagoo ka maran saameyn maamul iyo saameyn cid kale ka maran doorashadii reer Somaliland marka waxay ka marakacaysay haddii goobta lagu qabtay ay tahay iyo hadday tahay sida gudiyada u maamuleen iyo qaabka loo maamulo intaba doorasho ilaa xad macquul ah dhammaan dadkii murashaxiinta ahaa haddii ay mucaaridiin haddii mu'aydiin fursado siman ay u heli kareen waan rajaynaynaa marka doorashada reer Somaliland inta dhiman in sidaas nadiifka oo quruxda badan ku dhamaato haddii ahaan lahayd doorashada aqalka sare inta ka hartay haddii ahaan lahayd aqalka hoose ee golaha shacabka marka la bilaabo sidaas si lamid ah waxaan rajaynaynaa doorashada gobolada kale ka dhici doonta ee golaha shacabka ayadana in sidaas oo kale ay noqoto doorasho ilaa xad hufan macquul ah ka madax bannaan saameyn iyo faragelin tamaamulada ka madax bannaan saameyn iyo faragelin cid kale intaba ka madax bannaan adduunka anaga haddaan nahay midowga musharaxiinta mar walba waxaan dalban jirnay doorashada inay noqoto doorasho nadiif ah si nadiifan oo loogu tartamo goobta lagu qabanayo inay tahay goob macquul ah inay dad maaragtay goob joogayaal bulshada rayidka Soomaaliyeed ka socdo inay joogaan goob joogayaal ka socdo murashaxiinta inay joogaan goob joogayaal ka socdo beesha caalamka inay joogaan si loo ilaaliyo doorashada iyo habsami u socodkeeda iyo nadiifnimadeeda intaba si loo ilaaliyo waa hubaa haddii dhammaan doorashooyinka qaabkaas loo qabto waxaa dalka ka dhici doona ama ka dhacaya doorasho raalli la isaga yahay natiijada soo baxdana raalli la isaga yahay oo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku wada qanci karaan ayaa ka dhici doonta waa rajaynayaa marka doorashada in sidaas ay noqoto waxaan leeyahay hambalyo dhammaan sanataradii soo baxay shalay sidaas si lamid ah sanatarada soo bixi doonana waan u hambalyeynayaa waxaan si fursadan uga faa'iideysanayaa inaan u hambalyeeyo bogaadiyo geedi socodka doorasho golayaasha deegaanka ee ka bilowday dowlad goboleedka Puntland madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani saaxiibkay uu ku mahadsan yahay ka dhabaynta uu ka dhameeyay ballanqaadkiisii ahaa inuu Puntland madaxweynaha uu joogo uu ka qaban doono doorasho qof iyo cod inuu ka qaban doono waa sansaan fiican saddexda degmo ee hadda bilowga ah waa sansaan fiican sida ay ololaha u wadaan xisbiyada siyaasadda sida ay ololaha u wadaan waa sansaan fiican sida ay guud ahaan wax ku socdaan waa rajaynayaa marka doorashadaasi inay ku dhamaato hadda ololaheedu uu socdo si nadiif ah si xasiloon si degan si dhammaan dadka oo dhan ay ku wada qanci karaan inay ku dhamaato waxaan kaloo rajaynayaa deegaanada iyo degmooyinka dhiman guud ahaanba in markii doorashadaani tusaalaha ama sambalka ay dhamaato in dhammaan laga wada qaban doono si maaragtay geedi socodka dalka in doorashada dalka guud ahaan loo gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ay u taabagasho tusaalena ay u noqoto runtii waxaa bogaadin mudneed ayadana doorashadii Somaliland ay qabsatay dhowr bilood ka hor ay qabsatay doorashadaasi oo dhammaan aan wada arkayna sida ay doorasho nadiif ah doorasho ilaa ahad macquul ah ay u ahayd dalkanaga waa laga qaban karaa waana lagu ooyi karaa markii tusaalayaalkaas ayaga ah ee hadda dhacay loo fiiriyo doorashooyin qof iyo cod waa laga qaban karaa haddii maamulka iyo maaragtay administrationka markaas yimaado iyo maaragtay dhab ka tahay doorashada qof iyo cod haddii dhab ka tahay inuu dalka ka hirgeliyo nidaamka xisbiyada badan mar labaad waxaan leeyahay hambalyo doorashada Somaliland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.